guuleed jaamac fool oo ka mid ahaa dhalinyarada ciidanka qaranka loona xidhay hadallo uu baraha bulshada mariyey qoyskiisa ayaa madaxweynaha Somaliland ka codsaday in cafis loo fidiyo qoyska ayaa si buuxda raaligelin iyo garowshiyo uga bixiyey eedaha guuleed xabsiga loo dhigay waana kuwan iyagoo arrintaasi ka hadlaya anigii xukuumadda lahaa ma habeenkii ka hadlayay lahaa nin walba ehelkiisu waa soo qabsado marka hore ehelkiisii guuleed waa kan iyo family-giisii anna waxaan hayabtigii waxa dhashay walaashay waxaan ka bixinayaa marka hore raaligelin waxaan siinayaa xukuumadda Somaliland dhammaanteedba wixii inankaasi uu geystay qardoofooyinkii ama hadalladii qadafka ahaa ee ay kow ka ahayd madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ku xigeenka taliyayaasha jannada ciidamada Somaliland waliba jananka ciidanka qaranka iyo jananka biliiska iyo jananka sirdoonka jananka badda dhammaantoodba waan ka raaligelinayaa waxaan kaloo ka raaligelinayaa wasiirka gaashaandhigga hadalladii qardoofooyinka lahaa ee ka soo gaadhay waxaan ka raaligelinayaa ninka la yiraahdo Ramaax oo ah bara saabka gobolka Togdheer waxaan kaloo ka raaligelinayaa taliyaha qaybta gobolka Togdheer waxaan ka raaligelinayaa taliyaha sirdoonka gobolka Togdheer waxaan ka raaligelinayaa ummadda dhan ee reer Somaliland waxaan dhammaantood xukuumadda ka codsanaya inanka yar wuu khaldamay gidda gartiisa si dilbaalay gartiisana si ilmaada reeyal wuu khaldamay xukuumaddu meel kaga dhacay wuu gafay ilma yar buu ahaa ka hooyadii dhabta ku hayso iyo isaga horta wallahi miduma dhaxayn ilmaada reeyal waxaan xukuumadda ka codsanayaa in loo cafiyo oo maanta loo dambi dhaafo ayaan ka codsanayaa cid kasta oo wax tirsatay baa anaguna ka raaligelinay waxaanu kula socono maaha waxaanu ogolahay maaha xukuumadda iyadaanu ogolahay madaxweynahaanu ogolahay taliyayaasha ciidamadaanu ogolahay bara saabka gobolkaanu ogolahay dhammaanba madaxda Somaliland sharaf bay naga mudan tahay sharaf baanu u haynaa Somaliland baanu nahay cid kasta oo Somaliland wuxuu dhimaysaa waanu ka soo horjeednaa ma ogolin waxna la qaban mayno laakiin cid allaale cidii horumarkeeda iyo socodkeeda iyo shaqadeeda wada ayaanu la wadaynaa madaxda sharaftana waxaan ka codsanaynaa inay ilmaha noo cafiyaan sababtoo aan nin aqligiisu iyo garaadkiisu ku filan yahay maaha ilmo yaro caruura weeyi dhammaan Somaliland bas u dhantahay waanu ka raaligelinaa inanka Guuleed Fool waa fool xumo kuma raacsanin waanu ka xunnahay waxaanu nahay eheladiisii waxaanu leenahay oo codsanaynaa in maanta ilmaha Guuleed in loo cafiyo wax allaale wixii uu geystay ee qardoofa ee fool xumaana inaan raaligelin ka bixin raaligelin baan ka bixinay oo noqon maayo hana loo cafiyo waa codsi madaxweyne waa mid wasiir waa mid gaashaandhig waa mid barasaab waxaanu ballan qaadaynaa oo ku ballan qaadaynaa maadaama aanu ehelkiisii nahay haddii naloo cafiyo oo aan leenahay naloo cafiyo oo hanaloo tixgeliyo codka aan ku hadlayno in aanu Guuleed u noqonin hawsha uu galay maanta anigoo ah Guuleed Fool hooyadii waxaan ka codsanayaa madaxweyne madax meel la taabto u sarreeyay ma jirto madaxweyne waxaan ilaahay dartii kaaga codsanayaa ilmahayga yar ee khaldamay ee qaranka ku khaldamay shalay qaranku dagaalamay ismaan lahayn de maanta uu khaldamay ma khaldama way ilaahay madaxweyne ama wasiir ama jananka ama taliyaha bilayska intaba waxaan ka codsanayaa qof kasta oo mas'uul oo reer Somaliland waxaan ka codsanayaa inaad rabadaan taafadliga ilaahay 114 quraankan idinku xaal marinayaa waxaan idinka codsanayaa inaad ii sideysaan oo maanta ii cafidaan ilaahay baa wax cafiyay inta karaamkiina Guuleed waa inan yar waa ilmo yar uu khaldamay khaladkiisa xarig hadii lagu qabsanaa bir ku qabsanay dhaqan cilin baaban dib u geynayaaba waaba ilmo yar oo dhashay madaxweyne iyo cafi inankaasi way isku xigaan dhabta ku hayo madaxweyne ilaahay dartii ugu cafiya codsi baan direena codsi dawladeed ama xukuumadeed haddaanu nahay shacabka Togdheer waxaan ku codsanaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cigaal Ciro oo caaw halkan aan isugu nimi in loo cafiyo khaladka ka dhacay Guuleed Fool waa ilmo yar oo daayar oo aad u yar sababta buuga sita ayuu wax aqligiisu siiyay inuu qarankiisa difaaco maantana qarankiisa hadduu ku gufay waxaanu codsanaynaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad madaxweyne adoo u sarreeyo xukuumadda iyo golaha wasiirada iyo cid kasta oo ay gaadhay qaladka Guuleed anagoo khaladka aan ku raacsanayn oo family-giisa inuu dawladda cafido fadliga iyo damxootay bisha Ramadaan ee barakaysan
madaxweyne waan ku codsanaynaa wajankaan codsanaynaa wasiiradaan codsanaynaa xukuumadaan codsanaynaa barasaarka gobolka Ramax baan codsanaynaa cid kasto inaan ka qadaf u geeyo qoyskiisa kuma raacsanee waa ilmo yare waxaan codsanaynaa in loo cafiyo guuleed waa nin da'yar shalay tolo wuxuu ahaa dadkii qaranka ku suntanaa ee difaaciyay isagoo yaroo ciyaar iskuul guriga hooyadii jooga oo malcaamadii iskuulka dhigtaba uu qoriga qaatay taasoo ku caan baxo lagu bartay difaaca qaranka maantana way la qaloocatay waxa uu leeyahay dambiga maanta uu galay wanaagiisa shalay markii hore loogu dhaafo taasaan codsanaynaa waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha iyo taliyaha ciidanka in Guuleed Fool oo nin dhalinyaro ah TikTok taasoo la fogaaday in loo sii daayo arrinkaana dib dambe aan ugu noqon doonin Guuleed horta marka koowaad nin qaran jecel buu ahaa nin qarankiisa necab maaha waayo hadduu qarankiisa necab yahay dhaxamaha iyo jiidaha muu joogeen dhalinyarnimo qaaday markaa waxaan idinka codsanaynaa cid kasta oo quseeyo xariga Guuleed yare in haweeye ay fududeeyaan oo xorriyadiisa insha Allah dib u helo nin dhalinyaro ah oo qadaf uu ka dhacay buu ahaa hadalka uu yiri iyo wixii uu turxaan geystayna cidii dhiibsatay qof kasta waa ka raali gelinaynaa madaxweynahana waxaan ka codsanaynaa inuu iska cafiyo waxaan idinka codsanaynaa bisha Ramadaan 10ka khayr kale ugu dambeeya ilmaha yar hanala ciiday qoodhi iyo xiridiin oo soo daaya